عليكم ورحمة الله وبركاته دمان aad baan u salaamay dadka ku jira group-yada iyo qof walba shakhsi kasta video-ga soo gaara salaamtu islaamka ayaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas kadib barasho wanaagsan anigu waxaa la yidhahaa maxamed xasan shaale soo dhawow intaas kadib waxaan ku siin doonaa xogta lagu soo gaarsiiyey ama kambaniga aadka u quruxda badan xogtiisii ayaan ku siin doonaa waliba qaybta ganacsiyadeed lagula soo wadaagay ayaan sharaxaad kaaga bixin doonaa haddaba markii ganacsi lagu dhaho waa system is the key to succeed ganacsi markii la dhaho waa nidaamka ugu quruxda badan haddana guul lagu samayn karo haddaba xogtaas ayaan bilaaban doonaa insha Allah hadduu alla idmo haddaba xogtii intaanan bilaaban oo aanan sii guda galin 3 shuruudood ayaan kaga baahanahay number 1 haddii aad mashquulsan tahay oo video-gan uu ku soo gaaray mashquulka inaad dhamaysato haddii adigu telefoon aad wadatana telefoonkaada silent iska saaro shuruudda kale xigta wixii waraysi ama wixii su'aalaad ah adiga video-ga aad kala kulantana insha Allah qofka ku soo gudbiyay video-ga ama xogta ku soo gaarsiiyay ayaad ka wardooni doontaa insha Allah haddaba xogteena ayaan bilaabaneynaa welcome business opportunity waxaad ku soo dhawaataa fursad aad u qurux badan fursad dahabi ah fursad qurux badan fursad ganacsiyeed ku soo dhawow gacmo furan qalbi furan waxaan markaa guda galaynaa waxa loo yaqaano attitude of income haddaba haddii aan rabo inaan dhaqaalo soo saaro waxaa jira laba aragti markii adduunka loo fiiriyo labadaas aragti dadku ay ku nool yihiin bini'aadan ahaan markii la dhaho laba aragti ugu kala shaqeeyaan dadnu aragtidoodii waxay ka turjumaysaa bulacaan sida bulaca camal ay u shaqeeyaan dadnu aragtidoodii waa sida caarada ay u shaqeeyaan haddii aan micnayno bulucu hortu waxa lagu leeyahay lizard use is the time and the offer to cook food haddaba bahalkan bulaca la leeyahay ama bahalkan faraha badan oo jeedno wuxuu awood u leeyahay kaliya markuu baahan yahay inuu wax raadiyo wax soo cuno haddaba raadinta uu raadinayo waxay ka dhigan tahay waqti ku bixiyaa inuu kaliya calooshii wax geliyo kama dhigno adduunyo kale iyo mustaqbal kale ma rabo waa taas ayay ka turjumaysaayo xayawaankan uu orti uu soo cunay uu iska seexan hadduu dhintana dhaxal ma lahan haddii dhaawac yar uu gaarana qof kale oo ka nisinay ma lahan ay ka dhigan tahay marka haddaba aragtida koowaad dadku shaqeeya waxayna u badan yihiin saa u naqaano daily activity ay u badan yihiin inay daily wax raadiyaan inay dabka shidaan awoowayaasheenii hore nolosha ku noolaan jireen waa noloshaan haddaba marka nolosha kale ka aragti dheer kana wanaagsan waa nolosha haddaba is better bahashan xaarada la leeyahay caaradu waxay waqti ku bixisaa waliba offer to building asset inay dhisto hanti ma guurta caaradu waxay waqti ku bixisaa inay dhisto hanti ma guurta hantidaas oo loola jeedo inay shabakad dhisato shabakadaas oo aan ka guureynin dhaqaale badan u sameynaysa waliba haday ka maqan tahayna wax ka cunaysa haday joogtana wax ka cunaysa taasoo ay ka dhigan tahay mid mustaqbaleed dawladeedana anfici doonta idana anfici doonta haddaba maanta waxaa la raadiyaa fursad aad noloshaadii ku bedeli karto dadka ka dambeeyana horumar badan aad ugu sameyn doonto ayaa la baarbaaraa haddaba marka fursadda lagu soo gaarsiiyay waa fursadan oo caarada haday ka turjumayso oo fursadaad shabakad ku dhisan doonto waliba shabakadaas oo hanti ma guurta badan ku heli doontid haddaba wax badan ayaan ka qeexi doonaa haddaba waxaa jira cash flow wax la dhaho qofka markuu rabo dhaqaale inuu soo saarto afar wada loo maraa afartu wada ama inuu shaqaale noqdo qofka shaqaale minis waa half job qof shaqo loo sameeyay haddaba dhaqaale yar loo qoray ama $100 loo qoray ama $200 loo qoray waliba booskiina u soo maraysa lagu leeyahay shaqaaluhu markuu waqtigiisa ayaa laga gatay ka dhigan tahay self employee-giina waa lamido waqtigii hadii uusan ninkan self employee-ga naftiisu shaqeeyana ama ganacsato noqday ama dukaanlaha noqday dukaanka haduusan furin soo wixii hore aanan xaqin uusan hagaajinin waxay ka dhigan tahay wax laga ma iibsado lamana soo galayo marka naftiisu shaqeeye iyo ninkan oo shaqaale ah labadan hortu waa isku mid ninkan haduusan waqti gelin asna dhaqaale meeray ninkan kalena haduusan waqti gelin asna shaqaale mid wax lacag ku meelay ka dhigan tahay haddaba markuu dadku markii si aan loo fiiriyo 95% labadan dadku way u badan yihiin 5% markii caalamka loo fiiriyo maadaama adduunku dhaqaalaha laga sameeyay inta ugu badan ayay soo saaraan laakiin inta ugu yarayna ka qaataan inta ugu yar waa 5% kaliya qaataan maanta qofku markuu shaqaalaha uu soo saaro $5,000 lama dhahay 5,000 soo saartay
400 aan kaaga dhigaynaa kaliya 200 la siin ninkaana mararka qaar asaaba khasaara mararka qaarna asaa faa'iido marka labadan adduunku way ugu badan yihiin dad ahaan markii loo fiiriyo laakiin 5% ay caalamka ka qaataan dhaqaalaha faa'iido ahaan markii loo eego hadda waxay ogaan doonaa labada ugu faa'iidada badan markii la dhaho in lacag la soo saaro labadaana horta ugu faa'iido badan midkan waa investor waa qof maalgeliya wuxuu maalgeliyaa qofkan money work for you asaga ma shaqeeyo qofkan lacag baa u shaqeyso $1 milyan meel ku qarash gareeyay 100,000 meel ku qarash gareeyay lacag u dhasho ninka laakiin qof kale ka duwan ayaa jira waa maanta aan dhaqaale haysanin laakiin diyaar u ah inuu noloshiisa bedelo dhaqaale soo saaro waa qofkan waxay ka dhigan tahay wuxuu awood u leeyahay own system inuu nidaam samaysto people is work for you kaligiisna ma shaqeeyo dad baa la shaqeeyo fursadan lagu soo gaarsiiyay waa fursad aad u qurux badan oo aad system ku dhisi doonto saad u dhisaysan lagu bari doono noloshaada inaad wax badan kaga bedeli doonto dhaqaale badan aad ku abuuri doonto marka adduunka la fiiriyo labadan ugu faa'iido badan labadan ayaa ugu faa'iido badan qofka maalgeliya qofka systemka dhisa caalamku waxay ka yihiin 5% dhaqaalaha adduunka la qaata ayaa ugu badan hadda waxay ogaan doonaa business owner markii la dhaho business owner in system la dhiso bulshada la shaqeeyo faa'iido ay leedahay ayaa ogaan doonaa iyo wadooyinka loo maro horta number 1 talent xirfad lagu muxujin doono competition with other dadka kalena kulama tartami doonaan capital requirement dhaqaale badan oo kaaga baxay malahan no need of the knowledge aqoon dheeraad lagaaga baahan yahay malahan sidoo kale competition is with yourself kaliya waxa la tartami doontaa naftaada no capital requirement dhaqaale la leeyahay oo maanta hiblaayo ama hibilow intaano kuna doorar ka gashay hayay waa qasaartay meel lagu dhigi doono malahan insha Allah haddaba marka waxaa jira labada suuq ayaan kala ogaan doonaa midkan waxaa la dhahaa conventional market midkan waxaa la dhahaa direct sale conventional marketku waa markii loo eego suuq dhaqameedka aanu naqaano markii alaab la soo saaro Dubai la keeno Kenya markuu keeno jumladaysta ka sii qaado jumladaysii kii kale ka sii qaado tafaariiq leh qofkii iibsanaya ama dukaanlihii ka sii qaado dukaanlihii shopkii markii uu dukaanliyaashii soo gaaro ama farmashiilayaashii markuu soo gaaro ama daawo ha noqoto ama alaab kale ha noqotee macaamilkii $25 inuu ku soo gaartaa laga yaabaa iyadoo $10 ku soo baxday marka suuqan waxa la isku dhahaa traditional market waa suuq dhaqameed waa J system waa suuq soo jireena hadba suuqan waxa la adeegsadaa media markii loo fiiriyo waxay adeegsadaan raadiyo ay adeegsadaan internetka ay adeegsadaan marka qaar telefishinka ay adeegsadaan telefishinada waxaad aragtaa mar walba wax la xayeysiiyo mar walba idaacadii waxaad maqashaa isbitaal hebel asaasa la yiraahdo hadda waxay ka dhigan tahay suuq dhaqameedku xayeysiina aad u tiro badan ay sameeyaan suuqan markii si aan loo fiiriyo qasaaradiisuna aad ay u badanto markii alaab la soo saaro halkan marayso inay dhacda laga yaabo la koobi gareeyo oo ninkan wixii dhacayna gaaraan ama iyadoo koobiya loo geeyo macaamilkii sidoo kale hadana qasaarada kale waxa taa la dareemi karo waxa kamid ah alaabtii markii la soo saaro in 25 ay ku imaado say u soo socoto gacmo faran badan ay soo marto idaacadihiina waxay ka dhigan tahay lacag aad u tiro badan kaga baxa marka suuqan hadaba xaqiiqooyinkiisa waa inta hadda waxaa jira marka suuq ka duwan kana faa'iido badan kana awood badan suuqaasna waxa la dhahaa iibka toos oo soo saaray isticmaal company-ga alaabta kaliya soo saaray kadibna macaamilkii gaarsiin marka suuqan idaacad loo maxaysiiyo boor loo madhijiyo laakiin kaliya waxa lagu leeyahay directly markii alaabta ka soo baxdo branching ama soo saarka hadaba waliba macaamilku qofka gaarsiinayo waa qof qaybiyaan wuxuu adeegsadaa make word of mouth advertisement wuxuu adeegsadaa xayeysiinta afka inuu xayeysiin afeed sameeyo ayuu adeegsadaa qofka qaybiya markuu xayeysiin afeed sameeyo ayuu lacag usbuuciina helaa bishiina helaa sanadkiina helaa sidoo kale suuqan markii si ahaan loo fiiriyo waa trustful waa suuq is aaminaadiisa ay u tiran badan tahay waayo marka adigu maanta waad la socotaayo markii idaacad wax lagaga xayeysiiyo ama dharan noqdo ama cunto noqoto wax walba lagu xayeysiiyay idaacad markii aad wax ka maqasho iyo markii qof saaxiibkaada ama qof dariskaada ama qof qaraabadiya wax ku sheego war hiblaayo waxa jiro markuu ku dhaho qofkii dariskaada ama qofkii walaalkaada aad ogeed oo aad aaminsaneed ayaad wixiisa ku qancaysaa ka dhigantaa hadaba marka suuqan markii si aan loo fiiriyana waa trustful waa suuq is aaminaadiisuna aad ay u tiro badan tahay waxaan markaa ogaanaynaa direct selling markii suuq ahaan la fiiriyo iibka tooska waxa ku shaqeeya horta 60,000 company-dood ayaa ku shaqeeya 60,000 company-dood ayaa ku shaqeeya waxaana lagu dooran karaa an kuwi high quality product wax soo saarkii alaabtiyo tayo leh sidoo kale demand product alaabtiyo baahi badan loo qabo no problem haddana aan dhibaato adiguna kaaga imaanaynin si shakhsiyan markaad qaybiye inaad noqoto aad rabto waa inaad macaamiil abuurto haddii aad rabto
dhibaato kaaga imaanayso maahan. haddaba suuqan faa'iidooyinkiisa ayaan ogaanaynaa ama xaqiiqooyinkiisa. weliba wuxuu sameeyaa lagu leeyahay global saleska uu sameeyo waxaa ka mid ah North America wuxuu ka sameeyey 16.3 milyan. Europe wuxuu sameeyey sanadadii la soo dhaafay oo lagu qiyaasay 11.4 milyan. Asia wuxuu sameeyey waa wadanka ugu isbedelada badan ugu shaqada badan 52 milyan ayuu soo saaray dhaqaalaha. sidoo kale Afrika hadaan joogno 1.4 milyan. sidoo kale markii loo fiiriyo South America wuxuu soo saaray 10.4 milyan ayuu soo saaray. ay ka dhigan tahay 2001 iyo sirjikaas la sameeyey ama baaritaanka. hadda waxay ogaan doonaa company profile taariikhda companyga ku soo gaarsiiyay. fursadda ayaan kala fahmi doonaa aan xog dhameystiran aan ka siin doonaa insha Allah. haddaba horta companygan magaciisu waxa la dhahaa Tianis Group ayaa la dhahaa. companygan waxa la dhahaa Tianis Group. Tianis Group ayaa la dhahaa waxaana la aasaasay 1995 ayaa la aasaasay taariikhda rasmiga. sidoo kale wuxuu khibrad u leeyahay companyga 24 sano iyo experience u leeyahay inuu suuq geynba sameeyo. wuxuu ku jiraa top 100 world adduunka markii la eego boqolka kambaniyada ugu sarsareeya ayuu ku jiraayo la taaban karo. sidoo kale wuxuu soo saaraa animal saleska iib ahaan markii loo fiiriyo ama dhaqaale ahaan sanad leh markii loo fiiriyo 1.5 bilyan ayuu soo saaraa. sidoo kale over wuxuu kor u kacahan wadana ka howlgala ama branjiyo ku leeyahay 110 dal ayuu ku leeyahay 110 dal ayuu branjiyo wax soo saar ku leeyahay. haddana waxaa la shaqeeya 40 milyan in ka badan oo qofood. Arion join diyaar ma u tahay inaad companyga ku soo biir? haddaad diyaar u tahay number 1 inaad fahantaa alaabihii aad baaritaan ku samaysaa aad gelisaa www.tianis.com www.tianis.com inaad ciwaanadan aad booqataa si aad wax badan uga fahanto insha Allah. companyga waxaan ogaan doonaa Tianis International Health Industry Brand wuxuu ogaan doonaa qaybta uu ka kooban yahay ayaan fahmi doonaa insha Allah. company wuxuu ka kooban yahay qaybo badan wuxuu ku fadhiyaa 380 square ayuu ku fadhiyaa. sidoo kale wuxuu leeyahay university jaamacado ayuu leeyahay binary history wuxuu leeyahay qaybo taariikhda lagu keediyo wuxuu leeyahay waxa lagu qarash kariyay markii warshadan la aasaasayay waxa lagu qarash kariyay 1.2 milyan ayaa lagu qarash kariyay. sidoo kale high class hospital wuxuu leeyahay isbitaalaadka ugu sarsareeyo waliba high class ayuu leeyahay. sidoo kale 5 star hotel wuxuu leeyahay oo waliba dadka dalxiisayaasha kaliya loogu talagalay laga kireeyo ayuu leeyahay companyga. qaybtan waa hoolka shirka, qaybtan waa qaybta wax soo saarka warshadii, qayb wuxuu leeyahay jaamacado, qayb habeenkii kaliya lagu casheeyo quraacad iyo cashadii wixii qaabilsan ayuu leeyahay. wuxuuna marka sanad ahaan soo saaraa 1.5 bilyan iyo soo saaraan animal sales. healthcare qaybta caafimaadka ayaan ogaan doonaa. companyga wuxuu soo saaraa alaabo noocyadii kala duwan waxaan ogaan doonaa qaybta caafimaad. healthcare markii la eego horta alaabahan wuxuu soo saaraa ilaa 4 item ayaa hadda ugu magac dheer wax loo yaqaan food supplementary daawo dhaqameed oo daawooyinka hadda inta yaalaan oo tujeedid. wuxuu soo saaraa wax loo yaqaan home care guriyaasha loogu talagalay. wuxuu soo saaraa wax loo yaqaan adigu alaabo mashiin ayuu soo saaraa iyo wax guriyaasha loogu talagalay qurxinta. haddii aan dul maro alaabahan qaybtan waa mashiinadii, qaybtan waa qaybta caafimaad oo daawooyinka dabiiciga company soo saaro. daawadan vitality la dhahaa xanuunka u fiican tahay, daawadan cayilka lagu baabiya, daawadan wuxuu u fiican tahay unugyada jirka seel ayaa la dhahaa, daawadaasna canab ayaa laga sameeyay taranka ay u fiican tahay, daawadan zinc ayaa la dhahaa infectionka ay u fiican tahay, daawadan xasaasiyada ay u fiican tahay, daawadan waxa la dhahaa corticosteroids burooyinka ay u fiican tahay, daawadan waxa lagu daaweeyaa kaliyaha dhagaxa ku jira iyo macaanka, daawadan waxa la dhahaa calcium for nervaha hilmaamka dadka qaba ayaa la siiyaa. sidoo kale qaybtan hoose waxaa loogu talagalay dumarka ka caawinaya caado wareerka sida always tacmal ayaa loo xirtaa. magac ahaan waxa la dhahaa iris ayaa la dhahaa. wuxuu leeyahay companyga kaalshoomo sida laf xanuunka u fiican, kuwa macaanka u fiican, kuwa u fiican ilmaha korismadooda. haddaba marka qaybtaas waa healthcare waa qaybta caafimaad. markii caafimaad la dhaho muhiimadu in caafimaad wada qabna ma ahan. markii WHO ay baartay caafimaadku 75% dadku waa bukaan socote 5% way caafimaad qabaan ayaa la dhahay 20% sariir saariyay. haddaba waxay ka dhigan tahay waxay u badan yihiin dadku badanaa 75% waa bukaan socod. qof waxaad arkaysaa madaxa ay xanuunayo kule, qof gaasan ka cabanaya, qof infection, qof neer baa jira, qayb macaan uu la socdaa aragtay 75% kii soo galayeen. haddaba companygii intuu fakiray ayuu wuxuu ugu talagalay wax loo yaqaan Tianis Health ka sobti fikirka caafimaad uu companyga ka haysto waxa weeye horta triangle waxa la dhahayo leeyahay saddex xagal.
xagasha koowaad waa qayb wasaq saarida cleansing xagasha labaad waa qayb nafaqeyna xagasha saddexaad waa qayb ka hortagida haddii aan usoo noqono qaybta wasaq saarida wasaqdu waxay ka soo gali kartaa cuntadaada isticmaasho biyaha isticmaasho daawada isticmaasho noloshaada isa u nooshahay ayay ka soo gali kartaa nafaqo daawo la dhahayo ugu hayaayo oo kobcin ah iyo ka hortagid qualification oo kaysta shahaadooyinkan mid xalaalnimada hadii ay tahay iyo ISO 9001 iyo 9002 shahaadooyinka ugu qaalisan ugu la bixiyo kambanina la siino uu haysta kambaniga wuxuuna leeyahay qayb dhaqaale qofka hadii uu rabo qayb dhaqaale inuu ka faa'iideysto wealth keega ayaa ogaan doona qaybta dhaqaalaha haddaba hadii aad dhaqaalaha diyaar u ahayd waan ka fikiraysi sidee kambaniga ula shaqeysaa sidee faahfaahintu dheeraada u fahantaa saadaad lahayd fahan haddaba waxa jira kambaniga horta adigu wuxuu kaaga baahan yahay adigu kambaniga intaan adigu la gaarin horta asaga wuxuu ku leeyahay anigu halkaan taaganahay adiguna halkaas taagantahay shaqada ayaan kala qaybsanaynaa shaqadan waxaa noo ah number 1 inaan macaamiil kambaniga helo kambaniga inuu macaamiil helo adigina macaamiisha inay filaartaadii adigii ku soo raacaysayo inay ka soo baxdo macaamiilkii kambaniga aad ugu dibsay ka dhigan tahay marka muhiimadu koowaad kambanigu uu rabo inuu macaamiil helo macaamiil in la helana waxay ku xiran tahay shaqa adigina qayb in lagu siiyo kambaniga in qayb la siiyo adiga waxa lagu siiyay fiid iyo adigoo shaqa doonaho waxa lagu siiyay time waqtigaada gelinaysa xayisiin afeen oo sameynaysa kambaniga maxaa la siiyay alaabtii asaga ayaa haya casharadii freega saa bixin doona goobtaad ku shaqaysanada saa ku siin doono sidoo kale in monthly bonus lacagta usbuucii ay qaadanaysa lacagta billaha qaadanaysa asaa waajibaadkiisu saaran tahay laakiin adii maxaa laga rabaa inaad waqti geliso inaad xayisiin afeed u samayso inaad macaamiil awood kaliya intaas laga rabaa okay kambanigu marka waxa laga maraa 3 simple tasks saddex shuruudood oo fudud ayaa laga maraa markuu qofka inuu macaamiil hadii uu rabo koo waa la isdiiwaangeliyaa register ayaa la sameeyaa laba alaabta ayaa la isticmaalaa saddex dadka kalena waa la wadaagaa haddaba isdiiwaangelin markii lagu leeyahay number 1 waxay jiri jirtay warqadan ayaa jiri jirtay warqadan $30 ayaa lagu jiri jiray markii hore bisha hadda aan ku jirno iyo bishii la soo dhaafay free ayay dadku isku diiwaangelinayeen laakiin hadda ID card-kan ayaa qofka loo sameyn kaliya ID card-kan kaagama baahno lacag waad ku darsato laakiin kaliya wuxuu kaaga baahan yahay inaad macaamiil abuurto ama inaad isticmaal samayso ID card-kan kadib waad helaysaa free training casharadii freegan kambanigu ku siin cadadka laga rabo inaad iibisin waa ogaan doonaa okay decision to change your life haddaba maanta go'aanka aad qaadato aad isku diiwaangelisay waad macaamiil inaad abuurto go'aan u qaadatay waad xoogaadii iyo maskaxdaadii hadii aad geliso waxay ka dhigan tahay decision go'aanka aad qaadatay change your life tomorrow naftaadii ayuu bedeli doonaa mustaqbalkaadii ayuu horumarin doonaa maahan keega maahan kii waalidkaada laakiin adiga ayuu ku bedeli doonaa insha Allah waxay ogaan doonaa markii la leeyahay consumer product alaabta isticmaalidu waxaad sameyn kartaa optiona ku fudud waxay jira dawooyinka dabiiciga uu soo saaray kambaniga qayb kamid oo lacagoodu iska fudud yihiin iyo waxa u baahan tahay inkastoo xanuunkana marnuu dheeraan karo marnuu dhawaan karo wax allaale wixii aad rabto inaad cayimato wixii kugu habboon aad qaadato tusaale haddii aad iibin ku qaas aad samayso $110 hadaad adigu iibsato $10 kugu dhufan hadii aad adigu dhahdo $110 ma awoodi laakiin qayb kamidana awooda qayb kamidana waan qaadan qayb kamidana macaamiilan abuur hadii aad dhahdo waa okay way fiican tahay lagumana xayirayo lagumana diidayo qodobka hadaba $110 iibinta kaliya ayaa laga rabaa inaad samayso $10 ayuu kambanigu kugu dhufan hadaa $220 aad samaysana waa silfare wuxuu kugu dhufan $15 hadaa $440 alaab gaaraysa aad samaysana $18 ayuu kugu dhufan hadaba waxaan u imaanaynaa benefit of the growth dhaqaalaha ama kobaca guud qofka hadii uu bilaabo how do you start to work qofka hadii shaqada inuu bilaabo rabo saddexda marxaladood oo maraa bronze silver gold bronze waa $110 qof iibiyay silver waa $220 qof iibiyay gold waa $440 qof iibiyay $220 kana waa cadad gaaray oo inaad adigu ama qayb isticmaasho ama inaad macaamiil abuurto had isku celcelin hadii $220 iibiso $15 ilaa $10 bronze waxa laga sameyn karaa ilaa $800 silver kana waxa laga sameyn karaa $2000 gold kana waxa laga sameyn karaa ilaa $4000 percentage ugu badan waa gold waa $440 qofku markuu iibiyo ID card uu heli $18 percentage uu heli okay kambaniga wuxuu bixiyaa Tianis International Trip dalxiis caalamiyan uu bixiyaa wuxuu bixiyaa Tianis International Car Award awaalmarin qaas ah uu bixiyaa oo sanad la waliba sanadkan iyo sanadadana soo dhaafay ka faa'iideysi badan ayaa jiray number 1 inaan noqoto adiga ayaa iska dhigi kara insha Allah kambaniga hadii aad rabto inaad isbadin bas samayso hadaad ID card samaysatay macaamiil ina abuurto hadaad diyaar u tahay kambaniga wuxuu ku leeyahay
projectionka isbadintu markaad samaynayso intaan ha dhaafin familigaadii kow ayaga ku aaminsan hal ka mid a gaarsii qaraabadaadii ayaga ayaa ku aaminsan hal ka mid ayaad gaarsiin doontaa saaxiibadaadii ayaga ayaa ku aaminsan hal ka mid ayaad gaarsiin doontaa daraskaadii kadib dadka kale u gudub kadib dadka kale hal ka mid a gaarsii shantan haddaad wadadan raacdo familigiina la wadaagto qaybta caafimaad qaybta dhaqaalena la wadaagto ay ku aaminaan sidoo kale dariskii qaraawadii saaxiibadii iyo dadka kale shan ka mid haddaad la wadaagto waxaa lagu leeyahay sida ugu degdega badan weliba 5 bilood oo soo socota 3,000 oo maxaamiila ayaa sida ugu dhaqsiyaha badan ka abuuri doontaa laakiin markaa abuurayso waa inaad ogaataa dadku ku aaminsan inay muhiim yihiin oo familigaada ku aaminsan qaraabadii ku aaminsan dariskii ku aaminsan saaxiibadii ku aaminsan haddaba marka benefit from the TIANS distribution qofka faa'iidooyinka uu helayo waxa kamid ah markuu foomamka TIANS buuxiyo sharciyadeeda buuxiyo wuxuu helayaa horta time freedom and financial freedom dhaqaale xuriyadeed iyo waqti xuriyadeed weliba self health weliba caafimaad shakhsiyan u adeegsanayo oo adiga alaabta isticmaali doona the family hadaba weliba alaabtiin family-gan waa bari doontaayo oo waxaan heli doontaa business opportunity fursad ganacsiyeed oo faa'iido ku ah weliba aad ku samayn doonto develop personality kobac shakhsiyadeed weliba waxa qaadan doontaa tababaro training cashara maanta maskaxdaadii horumar badan guulo badan sameeyana waa qaadan doontaa oo isbedel badan casharadaasna ku saabsan on big international company faa'iidooyinka kale oo ku soo biiritaanka aad helayso waxa kamid ah inaad la shaqeyso company magaciisu macad leh sidoo kale become your own boss hadaba ganacsigan waxay kala faa'iido ku tahay adiga ayaa bosska ah adiga ayaa kor u qaadi kara adiga ayaa hoos u dhigi kara balse boss adiga ayaa adiga ayaa xukumaya dhaqaalaha adiga ayaa cadadi kara hadaba waa inta the power of the duplication is badintu ama dhaadhicintu faa'iido ay leedahay waxa kamid ah tusaale adigu hadii aad dhahdo maanta anigu waxaan rabaa awoodeyda inaan maalo qofna inuu dhaani awoodeyda ma ribi $50 halii qoro ama $200 halii qoro tusaale ninkii awoodiisa maalaya haduu 0.05 uu ka bilaabo ninkii kalena kontonkii sidii uu qaadan usbuuci labaad maalintii labaad 0.10 ay tagaysaa awoodii laakiin ninkii kale kontonkii taagan tahay maalintii saddexaad 0.10 ay tagaysaa laakiin 20 ay tagaysaa kontonkii taagan tahay only mar walbo awoodaadii ay biirto waxaad gaarsiin kartaa $819 ilaa asna meeshii uu taagan yahay ama tiradii meeshii taagan tahay qofka mishaariga ah laakiin qofka wax soo saar kale ayaa ka awood badan tiradii way sii kobacday maalintii 1638 ilaa maalintii ugu dambayso maalintii 30aad awoodii markii la fiiriyo waa 53,687,091 taasoo ay ka dhigan tahay awood ayaa mar walba ka awood badan iyo wax soo saarka markii maanta awoodaada xadidin lagu dhawaad shaqeyso wax soo saar samay adiga ayaa ka awood badan qofka kale laakiin qofkan kale mishaariga ah ama wax loo qoray waxay ka dhigan tahay wixii loo qoray ayuu only taagnaanaya marka sanadada soo socota adiga ayaa dhaqaalaha biirin doona shaab hadaba gabagabadii inaad kambanigii bilowdo aday kugu xiran tahay inaad guushii aad isbedel samayso adaa samayn kara inaad fail aad samayso dhicid adiga ayaa samayn kara hadaba talada gunaanadkeedu waxa weeye ninka loo yaqaan Bill Gates wuxuu ku soo gunaanaday network marketingka waxaa la dhahay hadii maanta chance lagu siiyo hantidaadii ay burburto maxaad samayn lahayd if you would give chance hadii chance la isiiyo waxaan samayn lahaa ayuu yiri waan bilaabi lahaa to again mar kale network marketing inaan system dhiso awoodeyda maalo ayaan bilaabi lahaa ayuu yiri waad mahadsan tahay tobarkeelkaas uu weegyahay sida quruxda badan aad u dhageysanaysay thank you so much waanigoo ah Maxamed Xasan Shaale waxaan ku rajayn doonaa guul iyo barwaaqo thank you